tana halkii aynu toddobaadka hore ku joogsanay ayaanu ka sii wadi doonaa. waa gabayadii iyo murtidii allaha u naxariistay gabayaagii weynaa ee la oran jiray cali cilmi afyare oo sida dadka waayeelka ay xusuusan yihiin muddo 50 sano ama 60 sano ku dhow dhagaha Soomaalida haystay, gaar ahaan markii gabaygiisa laga sii daayay idaacadaha xamar iyo Hargeysa. cali cilmi afyare sidaan soo sheegay ama dad badan ay og yihiin, aniga qudhayduna in badan aan ku celceliyey, wuxuu ahaa nin gabyaa ah oo gabaygu uu hibo ugu yimid isaga oo yar, markaasna wax walba oo uu soo maray iyo xilliyadii la soo maray oo Soomaalidu ay soo martay taariikh ahaan gabaygiisa ku taariikheeyay oo ku sheegay, haddii ay gobonimada xilligeedii ahayd iyo haddii kadib iyo gobonimada markii la helay ay ahayd iyo nimankii haddii ay la ku roon yahay dowladihii kala dambeeyey ama SYL ka dhisnaa ee 1969kii ama 69kii intii u dhaxaysay waddanka maamulayay, mar uu la jiray oo haddii ay la ku roon yahay uusan iyo maruu mucaarad ahaa labadaba. cali cilmi wuxuu aad iyo aad gabayadiisa tirada badan u soo baxeen xilligii lagu magacaabo xilligii kacaanka oo 1900 iyo haddii ay la ku roon yahay 69kii ka bilaabata ilaa 1986kii oo uu geeriyooday allaha u naxariistay cali cilmi. arrimo badan ayaa 20kii sano oo ciidamada xoogga dalku ay dalka maamulayeen 20kii sano wax weyn ayaa dhacay, waxyaalo badan ayaa dhacay, yani horumar badan baa dhacay, dib u dhac badan baa dhacay, haddii ay la ku roon yahay dagaalo sokeeyaa dhacay, haddii ay la ku roon yahay kuwo dabadeed baa la galay Itoobiya iyo Soomaaliya ah, siyaasado badan baa la galay, maray cirkaa maraysay iyo maray dhulka hoos gashayba Soomaaliya waa lahayd 20kaa sano. 20kaa sano marka nin walba oo gabyaa ah waxbuu ka soo saari jiray, ama ra'yigiisu dhiiban jiray, ama taariikh ahaan wax hadhow loo baxsado, ama annagu aanu maanta u baxsanay oo uu kaga sheekaynayo wixii dhacay munaasabad kasta sidii ay ahayd 20kaa. ilaa anagu buug iyo haddii la ku roon yahay Soomaalidu wax ma qori jirno, iskuma hadlayn jireen, gabaygaa unbaa shalay iyo maantaba waqtiga cali afyare iyo ka hor waqtiga raaga ogaas, waqtiga qamaan burxan, waqtiga haddii la ku roon yahay cabdigahair iyo faarax nuur iyo raggi lahaa, waqtiga haddii la ku roon yahay faarax suuriya lahaa, raggaas oo idil waxay taariikheeyeen oo ku taariikheeyeen gabaygooda dhacdooyinkii soo maray waddanka. buug ayaa gabaygooda markaa inoo yahay, library ayuu inoo yahay, inaynu ku mintidno ayaa loo baahan yahay. sidaa daraaddeed waa taa u soo noqo cali cilmi. cali cilmi 1970kii waxbaa dhacay Soomaaliya, markaasoo kacaanku uu cirkaa marayay, xiriirkii adduunkoo dhan usoo kala ordayay inuu xiriir la samaysto, laakiin dadweynuhu iyo dowladda iyo cid waliba waxay u badnayd xagga bidixda, macnaha xagga ruushanka iyo dowladihii raacsanaa ayay u badnaydoo maadaama ay ciidamada iyagu gacanta ku hayeen oo ciidamada ay yani hubka iyo tababarka iyo ay siin jireen, dadkoo idili wuxuu rabay oo yani bidix ama ruushka, yani laynkaas ruushka oo shuuciyadda ah ayaa loo janjeeray. sababta waxaa weeye sidaan soo sheegay ciidanka ka sokow waxaa la rabay nimankan reer galbeedka ah oo Maraykanku madax u yahay iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Talyaaniga iyo waxaa looga cararaya waxay ahayd wixii sidii ay Soomaalida u galeen qarnigii 19aad ilaa 1954 oo ay dhulka Soomaalida kala googooyeen oo shan u qaybiyeen oo silciyeen oo haddii ay Itoobiya ku wareejiyeen 3 jeer oo dhulkeeda qaar ka mid oo intaa oo idin ayaa Soomaalidu waxay u diidaysay in ay mar dambe galbeed ay raacdo. hadda ka horna halkan cali cilmi gabay uu tiriyay oo galbeedka uu ku diidayo kula talinayo nimankii saraakiisha oo dhalinyarada ahaa oo askarta ahaa waddanka qabsaday
وليه هاي نقد هاي رجال بلد دا إلهي تقانين وأبهناي هلك أيضا أي مرة يسوه دجال كونا هذه شهر دجال قبوبة لقوا مجعبايو وحي دجال كلا بعد أدوهم كدم بي إلى كل سجال بقول سجال يسديتنكي دجال كقبوبة بدأ يا قلبي كسعودي دولها يا كواس أي بتبمد راعي جرت ودار كل قرب كده جنت مركا تضواتنكي مركا واحد سعودي أدونك واحد كسعودي أو كلا دجال في فيتنام ومريكانك iyo Vietnam u dhaxeeyay oo la kala taageersanaa Shiinuhuna uu taageersanaa iyo dawlado badan oo adduunka saddexaad oo Soomaaliya ku jirto ay Vietnam taageersanayd markaa gobonnimo doon awgeed inay gobonnimo doon yani dagaalkooda ahaa darteed baa loo taageeray markaa bidix baa la wada ahaa markaas midig dawlad ahana waa jiraan oo yaryar oo hadda lagu roonayahay Mareykanka iyo reer galbeedka ku tirsan waa jireen barigaas waxaa jiray maraakiibta Vietnam waxaa saaraa cunno qabatayn oo badaha yani Mareykanka cunno qabatay masuuday laakiin haddii ay wataan calan kale way socon kareen oo waa loo ixtiraamahay adigu maraakiibtii Vietnam qaar kamid ah ayaa dawladda Soomaalidu waxay siisay markaas calanka Soomaaliya inay ku dhoofaan oo badda ku maraan xeebahana kaga yimaadaan dekedahana kaga soo yani ay ku yimaadaan oo hadii la guuranay badeecooyinka ku rogaan waxna ay ku soo qaataan markaas lama taaban karo maadaama calanka Soomaaliya uu saaran yahay Mareykankii waa ogaaday arrintaas waxay ka codsadeen inta u yimaadeen hadii la guuranay محمد سياد بره مدحوينه الله ونحرسته دلك أي واحد يلاهدين واحد يلسا علنك سوماليا وسعرا مراكبة فيتنام اللي قال لكم يا هي كتشوش وكلا لعبو هديك على معاونة يعني توجهنا عن الإنسان حواجة عن الإنسان markaas yani xilligaas xilli waxaas la yeeli karayna ma ahayno umadu qabeelahaydoo wadanku yani dad wuxuu ahaa aan shisheeyaha u dabacsanayn ayaa la ahaayo yani dawlad calan leebaan calanka iyo ciddaan rabaan siinaya markabkaa rabaan yani ha saarto yani la ima diidi karo oo kale waana gaf inaad xataa igula hadasho aad igu soo qaado halka ayaa mowqifku ahaa inta ayuuna maxamed siyaad ku yidhi sidaanu maqalay هنا شيء جنبوش معاوضنا وكا قوينايا على كان كاس هنا شيء محمد سياد لكن الله ونحرسته وشيء كما شيء الملقى السعودية يقولها وزير يددوينه وصوبان دقا انت فيارع سو استحقي لو ذا شو ومدي أردن إذا عزيزنا توصل بحية وحكومة مهما سوالي وتقعان ولا يراهدو باري جور صحونت هذا أنا لجور أما باري تك صحونت هذا أنا لا تك بار وحوي جبر سوالي واحد ترى هذا لكن سوالي يعني سيارها حياة كتيرة وحكملها هداد جورسته وقفتي هاد جورستي أي ويل أي لا ده غيرك كانتو ولا جت بيه أما ولا طورة ما له طورة يا له طورة ما عندك استوى قوة أول شيء سوى حياة ويل كيجي أما صحن كيجي أما دكسي كيجي أما وحاسي أورانيس مركز وحالة يا لا بالي ولا جت طورة تيبا محمد بار نبى مركز قبل بار هذا جورسته بلا دور صحن بيه وكانت markii ay reerka soo galeysay ay ma yani reerka dhisay dhowr saxan keentay dhowrkii saxan buu maalin kasta waa u sheegtaa in iyadu leedahay keentay maalinka dambe ordayga tagsuxuntaadana qaado maxamed siyaad wuxuu yidhi Mareykanow mucaawanadaadana qaado waxaana ka dooranay xornimadayada iyo cidda aan rabno inaan calankayga siino maraakiibteeda ha saaratay arrin waxay noqotay aad iyo aad loogu sacbiyey markaas cali cilmi markaas maalinkaas ayuu gabiyey keligiina ma gabiyen dad badan baa ka gabiyey laakiin gabaygii ugu qiimaha badnaa oo soomaalidu markaa ay ku celcelin jirtay kii cali cilmi ayuu ahaa
markaasuu wuxuu yidhi gobonnimadu waatay wax badan mararka qaarkood cilmi gabayadiisa waxaa lagu yaqaanaa arar laakiin kan uma u araran waxaa ka soo hoos gashay ujeeddadii ayuu ka abbaaray markaasuu yidhi gobonnimadu waatay wax badan naga gulaalayda iyadoo god dheer lagu riday oo gebi ka laalaada milatarigu goortuu guntaday goodirkii ololiye guul iyo xornimo ee bahay gacanta noo saariya ka soo guuray gurigii hore iyo gubatadii jaani godba doogi leh goof iyo xareed garalka oo buuxa geedaha caleenta iyo dhulkoogu martuu laacayso gorfihii abaaroobay iyo gocayga xoolaysan garoorka iyo dhayda iyo nimcada gabantu ay naaxday gabalaaxsay reerkii dhulaysahan ku goobeena reerku Soomaalidu u jeeda Soomaaliya u jeeda gabalaaxsay reerkii dhulaysahan ku goobeena guddiga tooradda iyo xooggu waa noo gandiyayaane geesigu siduu noogu kacay galowgu dhiilooye ma gabado libaax geyr qaba oo soo ganoodsadaya doqon baa gurguurta iyo nimay gadi karaayaane guray iyo walaadkii kufriga kaga gariirsiiyey gurdankii daraawiishta iyo gaaladii carartay gegidii la dhigay koofil iyo ganatadii raacday gurmashadii kuluubka iyo markii geelu ololayay kulubku waa leegada SYL baa leegada la oran jiray waagi hore oo Somali Youth Club kulubka halkaasuu sheegaya marka kulubka la oran jiray waagi dambe ayay noqotay Somali Youth League SYL gurmashadii kuluubka iyo markii geelu ololayay goobihii la soo maray haddii la isu wada geeyo gafi maayo taariikhdu waa gaada soo dhigan gafi maayo taariikhdu waa gaada soo dhigan ee gadiid socodka dheer awrtu waa garangalcowdaaye geediga halkii lagu wado iyo gibilkii noo muuqday go-aankiiyo runtii waa halkaan galabta joognaayey waxaan ku dhaadanahayaa kacaanka uu leeyahay wixii aan rabnay maanta aanu gaarada aanu joognaa waa 1970 ee garahadda hal sano unbaa laga joogaa markaas waa gowsaha waxaad geliso oo lagugu gaadaayo gargaar beena gacal baynu nahay gowrac daba joogo gujo la isu qarinayo iyo gumuc maliiraysan gabraartiiyo macnihii aad wadeen garanay xeeshiib niman yahow galbeed talada waa guhaysaan gob inaanu nahay kuma fakerin garable oo weyne gurbood iyo caruur maahin iyo duul garaad fudude gayigoo dhan aadniga ku nool gabal yar mooyaane gaafaha walaalnimada waa kala guddoonaayey adduunka oo dhan saaxiib baan la nahay in yar mooyaane haddaad idinku naga goosateen goror waxaan dhaamin waa mucaawanadii uu yidhi maraykanku waa goynaya haddaad idinku naga goosateen goror waxaan dhaamin kama gubatid deeqaygii waan kaala gaagaxay weligaa intaasaad ku celcelisaa buu yidhi deeqi baan ku siiyaa iyo waa kaa ceshanayaa iyo shuruudda aad ku xirayso kama gaagaxdid iskama daysid haddaad maraykan tahay haddaad idinku naga goosateen goror waxaan dhaamin kama gubatid deeqaygii waan kaala gaagaxayee gansigu wuxuu ka dhacay reero kale ha u gablaynina ee gadaashayda taagnow ninkii nagu gargaarayey guur baanu leenahay siduu geesiga yidhi gadaashayga taagnow ninkii nagu gargaarayey guur baanu leenahay siduu geesigii yidhi waa gaaxsanayd ciiddayadu tan iyo goor dheere nina gacanta uma qaadi jirin goofka beeraha ee guuraha raggii aad bartay iyo gurubsigii ceebta sidii loo gembiyey hawsha iyadu gaabis ma ahay nebigu nimankii wuxuu dhaliilahayaa sibilka ahaayoo maamulka dowladda soo hayn jiray 9 sano oo ka horreysay xilliga kacaanka waa gaaxsanayd ciiddayadu tan iyo goor dheere nina gacanta uma qaadi jirin goofka beeraha ee guuraha raggii aad bartay iyo gurubsigii ceebta sidii loo gembiyey hawsha iyadu gaabis ma ahayn gooradiyo abuurkan ku guray guguna ii saaray gallaydiiyo haruurkiiyo cambaha iiga soo go'aya gool iyo wan ii naaxa
iyo geriga hawd jooga garanuugta iyo deerada iyo goroyadoo luula guuyada ilaah nagu galladay weydinaan garanay mucaawado yartaa oo aada la wareegaysaan oo marba ceshanaysaan oo marna aad haddii alla kuu roon yahay aada nagu guulguulaysaan oo noogu hanjabaysaan oo waxaasaanu haysanaa buu leeyahy haddaanu ka shaqayno iyaga un baa nagu filan waa runtii laakiin ma la yeelay waa su-aal taagan gaaji iyo haraad maalin dhow waan gunaanadiina gudcurkii xumaa laga baxayo gurigii oodnaaye kuwii adiga kuu guuxi jiray garangal weeyaane annagoo aan gumaysi oggolayn guudka naga fuula soomaali giirkicinta iyo goodiga u daran hoygu casho iyay kula tegin ee godabha meelaysan buu yiri annaga haddaanu soomaali nahay buu yiri noloma dhaarto oo nalama guulguulo oo noloma hanjabo ayuu leeyahay waabay ahayd waa tahay waxaan ku xijinayaa gabay kale oo isna aada qiimo u leh 1970 iyo 1970 midun miyay ahayd waa tii hanti wadaagga waxa loo bixiyey socialism waxa ay afka gaalada lagu yiraahdo laakiin Soomaalidu ay u bixisay hanti wadaag ee bixinta Soomaalidu hanti wadaag iyo hanti goosad baa la kala yiri hanti wadaagii baa la qaatay ruushkii iyo dowladihii la jiray baa garabka la saaray haddii ala ku leeyahay Maraykan iyo reer galbeed baa dacaayad iyo waxaa loola fariistay iyo haddii ala ku leeyahay in Afrika oo dhan loo dacareeyo oo haddii ala ku leeyahay yani gumaysi inuu yahay loo tuso Soomaaliya ayaana xilligaas ugu horeysay oo ololaha ka soo horjeeda Maraykanka iyo reer galbeedka ayaa haddii ala ku leeyahay baa xoog iyo si la yaab leh loogu ololeeyay in Afrika laga saaro Soomaaliya caalamka u siday sidaan soo sheegay inkastoo aysan ahayn wax fiican oo gadaal laga eeday waa 1970 hanti wadaag baa la qaatay hanti wadaagga waxaa loo baahan yahay marka inagu yani in dadka loo fasiro ayaa loo baahday markii loo baahday in loo fasiro dadkii waxaa loogu fasiray oo laga bilaabay magacii laftiisa oo la yidhi hantidii la haystay oo ummaddu ay haysatay cid kaliya qaadan maysee waa la wadaagayaa waxbarashadii oo bilaasha haddii ay ku caafimaadka oo bilaasha haddii ay ku roon yahay ummaddii oo qof waliba halku dhaguna wuxuu noqday qof waliba intii shaqo laga rabo uu awoodo iyo baahidiisa oo la daboolo maalmeed oo la daboolo macnaha cuntadii iyo gurigii iyo baahida asaasiga ah oo laga daboolo qofkii isna shaqo ayaa laga rabaa qof iska fadhiyo wax loo keenaya ma jiro marnaba كاسالي هنتودا كاسالي وهذا وهنتودا أنا جوا نقين أنا جوا هدال كود ربي أهو أنا قاعد نقين سمعت وأسلق بوين تاي وهو البنا أهره إنه يلا قال هنتودا جي كارل ماركس يانجلس يو لين يو أنت أصلا بوق كقرآن يدونك وعلمي أو ساينس كل سنة وحسابها كل سنة ودقارها كل سنة أرمها بالشدة كل سنة ayaa Soomaalida markaliya waxa tii anaga ka horeeynayo waan naqaan maxaa ugu horeeyay maxaa daliil oo ah in anagu hanti wadaaga ugu horeeyno umadaha adduunka hadda hal abuurka Soomaalidu ma waayin marka wuxuu soo bandhigo cali cilmi aan ka bilowna cali cilmi wuxuu yiri awal baanu naqin waarun maxaa kamida maxaa taqin qofka Soomaaliga waa sadcaara safar dheer buu galaa biyo iyo caana midna ma qaato wuxuu isku haleynayaa inta xoolaha dadka kale dadka uu sii mari doono oo uu la harsan doono ama uu ku hoyan doono oo wadadiisa yaal oo xaq ugu leeyahay inay siiyaan wuxuu ku noolaado iyo wuxuu habeenkaas yani cuno xoolo loo qaro haddii la ku leeyahay caana la siiyo xaq u leh taas miyaan hanti wadaag ahayn ayuu leeyahay cala cilmi ko guurka nin aan shilin haysan ama neef adduunyada lagu arag baa guursan jiray markaas la kaali jiray kaaro wax la yiraahdo maxaa la siinayaa aqalkii baa loo dhisayaa xoolihii baa la siinayaa reer walba neef buu siinayaa caanihii haddii ku leeyahay ama uu maashanayaa ama lihiiba waa loo siinayaa qaraabada hadduu yahay halkaas waxaa ka abuurmaya reer dhan
oo dhaqaale awal uu ku dhismay oo uu haystay aanay jirin dadka jooga ama qaraaba ha aado ama dadka deegaanka ha ahaade waa nin la kaaliye kaaro ayaanu ku guursan jiray buu leeyahayo taasi meesa hanti wadaag ahayn waa tahay gaadiid ceshiga waxa la yiraahdo ayuu cali cilmi haddana soo qaadanaya maxay tahay gaadiid celisku waxa weeye waa la guurayaa meel abaara laga guurayaa roob baa meel ka da'aya sahan baa soo noqonaya meel heblo roob baa ka da'ay deegaan bay leedahay haddii la guuroodayahay naq iyo haddii la guuroodayahay ballidaa buuxda laakiin ka waran ninkii aan gaadiid haysan uu ku guuro ama awrka ka garbabeelo ama dhawaan bahal ka cunay muxuu ku guuri waa waxba maxaa la samayn jiray markaas kuwa awrta leh markay guuraan oo meeshii tagaan oo ay degaan ayay u soo celin jireen awrtii oo caddaysina markaasuu isla guuri jiray cali cilmi taasna wuxuu u fasirahayaa hanti wadaag kow ceel baad xoolo keeni jirtay geel baad keenaysaa waxaa laga yaabaa inaadan wiila lahayn markaa geela kuu shuba adiguna aad iska tabar yaraysay xataa haddaadan tabar yarayn aad u baahan tahay cid kula shubta ceelkii markaad timaado oo geelii lasoo yani uu yimaado yani dadka ragga ceelka jooga ayay khasab ku ahayd dhaqan ahaan inay kula shubaan geelaas oo kuwoodu markay fulaan uu la fulo ayay ahayd ama wax yar uu ka dambeeyo marka iyagu kooda ay adeera ku reen waraabsadaan iyadana hanti wadaag buu cali cilmi u fasira kow reerku markuu dego haddii aadan sidoo kale ciidan haysan waxaa loo baahan yahay in ariga loo oodo oo ood yani xero loo sameeyo geeli sidoo kale loodii sidoo kale xoolihii aad wadatay oon xeray kaaga baahan yihiin keligaa baana tahay niman sodcaaraha ku soo maray oo kuu yimid adoo yaabana waxaad samaysa garanla oo keligaa ma oodi kartid ileen nimankii waxay ku khasban yihiin inay kula oodaan iyagoon waxba kaa qaadan waxba kugu shardiin inay kula oodaan taasina meesha hanti wadaagga ahayn waa siyaabihii lagu dhacsiiyey ummadda lagu dhacsiinaya berigaas waxaa hanti wadaaggu yahay sidaana ma aha hanti wadaaggu dee waa wax cilmi ku dhisanba waa scientific weeye laakiin si ummadda looga dhaadhiciyo in dhaqankaani uu yahay dhaqan ay wax ku leeyihiin oo iyagu ay qayb ka mida lahaayeen ayaa cali cilmi iyo raggii kaloo gebi jiray oo xilliguba 1970 ay يعني كوفا سريان هنتي وذاك دتك ugu jilciyeen ugu soo dhaweeyeen fikradda hanti wadaagga ah waa gabay qurux badan sida kale sida gabayada cali cilmi oo kale yani oo kale sida ay yihiin wuxuu yiri gabayga sifnaha loo tirshaa waa si gooniya sandulle iyo xoog hadalku waa ka sidbanayay kol hadduu sikiir yeesho waa sirc wareeray saxariirka dhacay ee murtida samada loo tuuray sawtaaca luuqda dad baa iska dhigayay buu leeyahay kuwa wuxuu maqlay raadiyaha ka gabayayo luuqdiisa raadinaya luuqdiisuna mid la heli karay runtii ma ahayn saxariirka dhacay ee murtida samada loo tuuray sawtaaca luuqdayda iyo maal la soo simatid inkastoo la ii sogordaho oo saxarka loo diido niman hadalku sheegaynin iyo sancadaan ahay afartaas saada iyo wowga iyo siin maka hikaasay sarmaseegta uma yeelinine sadar ma qaadsiiyey sumad lagu garto iyo sow xariir kuma sitaacaynin afar kalena waa sooshalka iyo sida tan loo doortay sooshalka wuxuu ka wadaa socialismka waa kan bilaabahaya marka sodcaalkii ninkii sodcaalay oo aan sahayda wadan jirin oo soomaaliyeed iyo sidii loo qaban jiray soomaali hore wau lahayd samiya khayraada sinjaarka iyo walaalnimadu waa nagu samaysnayday wax hadeer la soo saaray iyo saaka ma ahayn adigoo sodcaaloo wax badan socod ku dheeraaday oo aan sibraar buuxa iyo sahayna sii qaadan salligii iyo barkimo saaran iyo golo la soo ooday sogob iyo wan loo qalahayo iyo siraro geedaysan sulux aana geel iyo karuur sabarka kuu buuxsha suuriyada nin loo soo galaa kuu samayn jiray
وتنا وحوي جوركي iyo kaaladii suldi maarle niman haysan baa suuban guursada Soomaalinimo loo kaco iyo sareeha loo qaado saableyda dhiishiyo digsiga saxamad iyo weelka sati qurux leh saantiya lamada seesarka iyo koobka sabeenta iyo ceesaanta iyo siinad iyo xoolo tira socota iyo saayid buu subax yar oo taayib ninka guursaday baa oodanahay isaguna maleeyahay dadka siiyay oo waanta wadaag saylaan fogaada iyo daruur soolka ka hilaacday sahan iyo rag loo diray hadday soo arkaan muguca salaadii haddii lagu kaco la isku soo yaamo sawaxanka iyo geediga hadduu salowgu kuu yeero subeehiga ratiga aqalka waa lagu sideeyaaye waxaad saarta heeryada haddaad samaysto ood weydo soo celinta gaadiid nin kale waa ku siin jiray waa gaadiid celiskiisana wuxuu ku xijinayaa iskaalmaysiga maalinta ceelka la joogo ee la ciidan la yahay sida lagula shubi jiray xoolahaaga adoo soofka ceel geeyay oo siina dhalan dhoolay dadka haddaad u sii dhigato oo saahid uga yeesho suudiga kulaylka iyo hadday soo horay noqoto wadaan sarara weyn oo nin lihi saari kari waayey raggu kuguma sii daayo oo waa la soo bixine iyagoo biyaha siiyey baad saacaddii fulay xoolahaagaa kuu fulahaya buu leeyahay markii raggaasi kula waraabiyaan ugu dambayn wuxuu sheegayaa marka tii kale oo iyaduna ahayd wada oodidda reerka markii la dego haddii la ciidan xun yahay reerkoo sanaag degay haddaad ciidan sugan weydo sacabada haddii geed xun iyo qodaxi kaa saydho dhallinyaro saraankuugu timi seexan mahayaane soo guridda oodda iyo waxbay kugu siyaadsaane si loo dayaba hawl iyo waxqabo waa mid noo saleh sifnahan ka sheekeeyey markaa uu ku soo gabagabadii wuxuu ka dhigay sifnahan ka sheekeeyey iyo hadalladan saafay sadaqada dhulkeenna iyo nimcada sicirka loo gooyey markaasna ayaamahaas baa waxaa badeecadii haddii la kugu roon yahay nimanka ganacsatada ahi ay nin waliba intuu raba ku gadan jiray ayaa sicir loo sameeyey markaasaa hugun yar baa bilowday oo waxaa la yidhi in allaaha huwa almusacir sicirka ilaah baa sameeya ee dowladdu inay farageliso maaha guux ah baa hoos ka bilowday inkastoo aan yani la baqahayayo aan lasoo yani qof ku dheeraysan karay aanay jirin laakiin cali cilmi sicirkaas la gooyey uu taageeray sifnahan ka sheekeeyey iyo hadalladan saafay sadaqada dhulkeenna iyo nimcada sicirka loo gooyey nina keligii saami uma helin salaha dhaadheere sinaan iyo xaqsoor uumiyaha saabo laga yeelay cilmigaa la soo koobay oo laysu soo ururshay aqoontaa sugnaatay iyo ra'yi bay nagu siyaadsheen nimanka askartaha buu sheegayaayo bay nagu siyaadsheen uu leeyahay daawadayaal barnaamijkii halkaa maanta ah noogu ekaado waa inoo mar kale iyo barnaamij kale oo sugaaneed ama af soomaali ah haddii ay badno